aabaha yaa waxa taas oo qalbaha cunugaaneti ani inta jooga qurba jooga 200 ina wax tareeyay afni afrika gurigiisa iyo toona qanaysa ku baahan 200 ma ka baahan لا إن عالك هذا المعركة واقعنا وليس خروج العاب عفساني لما استوى وإحنا مصير ده الشيء يساي واحد تقدر هذا أدارت بريء ما أنت ديب معركتي واحد عنقا كقوليه إنا ديبت ما أنت سأكسا ك ما أنت ديبت عنقا نيتي يا إنا بيلكي صوفي أو سيس بشارع ما أنت ديبت عشان ميديا راح إيسا بلون واي مدينه العكس متودري اسمعنا اوكي مديدنا اوكي باي هاركيسا كلنتي وعنا wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtiin kusoo dhawaada channelkeena waa channelka umada Soomaaliyeed soo dhawaada hadaan nagu xusubtaa subscribe ka naga hilmaamin hadaad noo joogteen lagta aan sharta nala wadaag maanta waxa idin hayaa Amiira qurux sida ogtiin ekiskooda hore husbandkeeda ayay kala tageen waxay soo sheegtay YouTube-ka ay wixii ku soo qortay iyo ka soo hadasho xog leedahay ninkeyga hore yani ex-husbandkeeda ugu cawaadeyso ee ugu tabanaysa asla asaga waxa la yiri gar hadaad maadaama oo social media loo soo bandhigay qof xal yiraahdo madax ka daqran tahay aad aragtid ha xugminin sababtoo ah tan kale ma ogid waxa ku yaalo soo markaa asna waxa soo hadlay oo bartiisa isnaafka ugu soo hadlay husbandkeeda Hanad ayaa wuxuu soo hadlay qoraalo oo sheegayo inuu wiilkiisa bisho inuu wiilkiisa wax siiyo inuu bil usoo diri jiray bil walba 800 700 markay bilowday dhaga waranka igu soo dhaga warmayso ayuu wuxuu dhahay waan joojiyay oo waxaan ka dhigay 200 asla wuxuu kala soo bandhigay codad sir ah ee isdhaafsadeen xaaskiisa hore anaada wuxuu ma horto ma haboono nolosha social media meesha maxkamad ma ahan family ay leedahay dhaqankii hore ama Soomaalida ninkii naqsadii isfuraan wiilka cunug yariis cunug ka dhaxeeya carruurta xaquuq ay lahaan jireen soo marka familka ay soo dhaxgali jireen hadda meesha waxa noqotay maxkamad social media Soomaalida ayaa loo soo bandhigayaa Soomaaliyaas ayaa u kala garqaadayso anaga marka wixii fikradeena ah baan ka dhiibaneena waxaan dhihi karaa wuxuu soo bandhigay ekiskeeda husbandkeeda codad sir ah ee ku leedahay yani 200 lacag ma ahan hadii aad lacagtan ka badiyayso social media ku dacwad doona yani waxa jugleynayso soorto wuxuu mahay wixii isdhaafsadeen dadka way dagaalan khilaafadu dhaxmira inuu soo bandhigo laakiin arinta taalaaya waxay tahay meesha hadduu haas ka tabanayso inuu lacagta biilka ka dartay mise ku yareey soo family qabaan shalato gabadhan markuu aroosayeen family ayuu ka doontay may kala xaliso oo u sheegto arinta jirto maxaa social media maanta aad ka sheegtid aad inuga iguma biilo taas waxay la macno tahay ma sha Allah anigu si wanaagsan baan u garanay ma jirto gabi ahaanbo soo in la wado oo dad badan ka soo horjeestaan oo mucaarad yeelatid in dad badan ku taageeraan yeelatid ma ahane wax kale ee faa'iido ee leedahay ma jirto asna ma habooneen inuu karoonaaday maadaama uu rag yahay inuu codadkii iyo cunugeyga waa biil jiray iyo waxyaalo badan oo ka soo hadlo ma habooneen mana qurux badneen warqad walba oo ku soo biilkiis ku sii jiray noloshiisa cunugiisa wuxuu sii jiray inuu soo bandhigo oo ما هبونين الحفاظ كمو لكن واحد يكره وحان بدلي دقيقي واحد بدلي وحول بو ماشا واحد نقطة مقايد سوشيال ميديا ولس كدعوي شعب كصومالي هدانا هنا عمقنا سيدا دادكو كالعلين وادهالي قصبا مركا العلينا دادكو يقولوا سياسيين تهلا كلا سوء عليو نينا قبنين ناك استقال يا دمروزا هو المسكو دالي على كلا عليو والله واحد يكره waxaan karaa inaad dhiibtid maanta saacado xariiqda social media waxyaalaha qaaskiniga keenina heeraha ilma isku dhaleen hooyo aaba tahay shooda xariis kula haro intaas baan oran karaa lacagtiis muxuu diris ma aniga okay mididina okay way harkeysa